السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وانيمة maanta cashirkeena waxaan ku soo qaadanaynaa formel iyo informel. Faransiiska formel waxa la yiraahdaa qofka ku ixtiraamaya ama vous ku isticmaalay. Informelna waxa la yiraahdaa dadka isgaranaysiin ama dadka isku da'da tihiin. Tu buu ku isticmaalaa qofka tu markuu ku isticmaal informel buu ku isticmaalay. qofka hadduu formel vous ku isticmaalay formel buu ku isticmaalay. cashirkeen ugu horeyna maanta waxaan ka hadlaynaa magacaada sidii qofku ku weydiin lahaa adna ugu jawaab lahayd asigoo formel iyo asigoo informel ah. Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? Magaca waxaan ku soo sheegnay hadda saddexdaas wado informel asoo ah. kadibna waxaa ugu jawaabaysaa je m'appelle Nima. Moi c'est Nima. Quel est votre nom? Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Magacaada, magaca iyo magacaada iyo magac familkaada waa formal way. qofkaas wuxuu ku soo weydii formal ahaan ixtiraam ku jiro kabacdi waxa ugu jawaabaysaa je m'appelle Nima Abdullahi. maadaama uu ku weydiiyey noogaada iyo prénomgaada oo ugu jawaabaysaa. Faransiiska hadduu qofka u kaliya ku yiraahdo quel est votre nom waa maxay magacaada magaca familkaada bisa u sheegaysaa waxa la yiraahdaa madam Abdullahi yaa la dhahaa oo kala hadleeda. hadduu qofku ku yiraahdo votre nom et votre prénom s'il vous plaît markaas waxa isku daba dhigaysaa magacaada iyo magac familkaada. marka waxa formel baahed intaas. haddana waxaan nagu weydiinayaa qofku meesha u dhashtay. Tu es de quelle nationalité? Tu viens de quel pays? Quelle est votre nationalité? qofku markuu ku yiraahdo tu es de quelle nationalité? Tu viens de quel pays? sida aan igu sheegay tu qofku markuu isticmaalo waa informel ahaan buu wax igu sheegay. markuu ku yiraahdo quelle est votre nationalité? wuxuu kugu weydiiyey si formel ahaan kabacdi waxa ugu jawaabaysaa je suis somalien. waxaa somalien. Tu es quel âge? imise jir ayaa tahay? j'ai 23 ans. waxaan jiraa 23 sano. qofkaas wuxuu kugu soo weydiiyey da'daada informel. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? taariikhda aad dhalatay ama wuxuu ku dhihi karaa vous êtes né le. intaan uu kugu weydiiyo waxay tahay formel buu kugu weydiiyey wada ixtiraama sida barfajuuqada iyo meeriyada oo kale ah. kabacdi waxaa ugu jawaabaysaa je suis né le 18 décembre 1992. waxaan dhashtay 18 bisha Decemberaad sanadkii ahay 1992 ama da'daada inta ahayd markaas. afar wado ayaa jirta Faransiiska informel ah oo qofku kugu weydiin karo waxa aad qabatay shaqada aad qabatay. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme boulot? Tu poses où? intee ka shaqeysaa. afartaas wado oo qofka informel kugu weydiinaya. qofka kaleente oo formel kugu weydiinaya wuxuu ku leeyahay quel est votre métier? maxaa ka shaqeysaa. bacdeen waxa ugu jawaabaysaa shaqada markaas aad qabatay je suis étudiante. waxaan ahay arday ama waxa markaas camalka aad qabatay. Tu habites où? qofka markuu degan yahay Paris oo kaleente wado oo waxaa jirta dadka Parisianka ay isku weydiiyaan. qofku Paris markuu degan yahay wuxuu ku leeyahay tu habites dans quel arrondissement? laakiin qofka markuu degan yahay meelaha anaga degan oo kala dhowrka 92 iyo kuma dhahayo qofka tu habites dans quel arrondissement. Quelle est votre adresse? Tu habites où? Tu de ça on soo sharxna waaye waa informel. Tu habites dans quel arrondissement? ayadana waxaa weeye informel. qofka formel ku weydiinayna
markuu ku weydiinayo meesha diganta ama adresskaada waxa ku leedahay quelle est votre adresse, quelle est votre adresse. ama waxa ugu jawaabaysaa markaasito j'habite 7 rue avenue de la République, waxaan deganaa wadada 7 avenue de la République. ama hadaa Paris degantaa waxa ugu jawaabaysaa j'habite à Paris dans la 19e arrondissement, waxaan deganahay Paris 19ka arrondissement. haddii aad degantaa meelaha anaga aan deganaho kalena waxaad leedahay j'habite en banlieue, waxaan deganahay banlieue-ga Paris meel ka saarsan. hadda cashirka dhan waa soo akhrinayaa, marka idinka laga rabaa insha Allah inaad ka soo shaqeysiin wixii formal ah iyo wixii aan formal ah. cashirka aniga waxaan ku soo qoraa hoos description-ka ku soo qoraa meesha hoos. gacantaada midigta mobilka waxa taabanaysaa calaamo yariis oo kor ah video hoostiisa oo sambuus amal u sameeysa fargees u sameeysan, calaamadaas jag siinaysa. cashirka dhanaa ku soo baxay adoo codka dhigeysanay, cashirkana saasa u akhrisanaysa oo la socoti. Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Nima. Moi, c'est Nima. Quel est votre nom? Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Nima Abdullahi. Tu es de quelle nationalité? Tu viens de quel pays? Quelle est votre nationalité? Je suis somalien. Tu es quel âge? J'ai 23 ans. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? Vous êtes né le? Je suis né le 18 décembre 1992. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme boulot? Tu bosses où? Quel est votre métier? Je suis étudiante. Tu habites où? Tu habites dans quel arrondissement? Quelle est votre adresse? J'habite 7 rue avenue de la République. J'habite à Paris, dans la 19e arrondissement. J'habite à Paris, dans la 19e arrondissement. J'habite en banlieue. marka insha Allah idinkaan laga rabaa inaad soo sharxdiin oo idinkoo fiirinin cashirku marka fiirsiin marka dambe oo kala asaa soo aqriyo kalante ina kala ogaatiin. markaan ku dhaho kale tu t'appelles comment? ma formel ba mas informel. marka aan ku dhaho quel est votre nom? ma formel ba mas informel. maalin walba hadaa laba eray oo saxsan ka faa'iidin insha Allah Faransiiskiina wuxuu noqonayaa mid horumar gaaray. muhiimadda waxa ah in laba eray ka barati iyo labada eray waxay ka hadlayaan. maanta waxaan ka faa'iidnay insha Allah formel iyo informel. qof walba uu yaqaan vous et tu. tu waxa uu isticmaashaa dadka garanaysi dadka isku faatiyin. vous waxa uu isticmaashaa qofka ixtiraamaysi. laakiin maanta waxa ka baranaysaa hadaad ogeyn formel inuu yahay vous et tu inay informel tahay. qofka markuu ku yiraahdo kalante ama maalin iskuulka gashin ama hadaa dhigatiin oo kale tu maxay tahay markii lagu yiraahdo tu waa informel ba leedahay. vous maxay tahay? vous waa formel oo qofka ixtiraamaysi. description badan hadii arabti inaa u sii sameeysi. marka khayr badan aan rajayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cashirka dambe la socda. cashirkiina mar walba soo niigu soo dhaco subscribe taabta gambalelka taabo soo cashir walbo soo kaaga fakane oo ula socoti Faransiiska biidnillah kariim 6 bilood kadib insha Allah hadii maalin walba cashirkii ala socotiin Faransiiskiina wax badan ayuu iska bedelayaa. waxyaalo badan aan ka barnaysi insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi